Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulka siyaasadda ee janalka Warcadda Media. Aan markaasi idinku soo gudbino hadba mawduucyada ugu xiisaha badan ee waddanka ka taagan, gaar ahaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Yaan barnaamijkeena markaasi kusoo qaadan doonaa qodobo kala duwan oo muhiim ah ee waqtigan waddanka ka jira. Dhegeystayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad markaasi subscribe noo saartaan janalkani, sidoo kalena aadan ka ilaawin sheerta iyo laagta aad markaasi noogu dhufataan. Aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya soo gaaray wafdi ballaaran ay kala hogaaminayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyagoo markaasi lagu wado inay ka qayb galaan shirka ay dowladda federaalka Soomaaliya kula yeelanayaan golaha mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeedii, kuwaasi oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda dalka, gaar ahaan doorashooyinka, dastuurka dalka, abaaraha waddanka ka jira iyo arrimaha nabadgelyada guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxaa maanta wafdiga madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, labada aqal, wasiiro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, barbaarta gaashaman, iyagoona markaasi soo dhaweyn ballaaran halkaasi uga sameeyey. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa loo galbiyey xarunta xalane ee gudaha magaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Inta uusan imaanin madaxweynaha maamulka Puntland, waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi ballaaran oo markaasi ka tirsan ciidamadiisa gaarka ah, iyagoona ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan, kaasi oo horey khilaaf uga dhex abuuray ama dowladda federaalka Soomaaliya u diiday inay magaalada Muqdisho soo gaaraan, balse ugu dambeyntii loo oggolaaday in ay ilaaladoodii xooggan la soo galaan gudaha magaalada Muqdisho. Muuqaallo iyo sawirro laga soo duubay ayaa muujinayay in ciidamadaasi si aad ah markaasi u hubeysnaayeen, islamarkaana ay galbinayeen wafdiga madaxweynaha maamulkaasi Puntland. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda degan xarunta gudaha xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu wadaa kulamo ku aadan sidii markaasi xaaladda dalka Soomaaliya ay uga yeelan lahaayeen mowqif iyo markaasi aragti midaysan. Waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulankii ugu horreeyay uu la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo uu ka mid yahay madaxda mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed. Waxaana sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu kulan kula qaatay gudaha xeyndaabka xalane uu ka degan yahay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inta uusan ka hor kulanka furmin. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isna markaasi ka mid ahaa wafdiga maanta uu hogaaminaya ee soo gaaray magaalada Muqdisho, isagoona markaa watay ilaalo aad u xoog badan, islamarkaana soo dhaweeyeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isna loo galbiyey xeyndaabka xalane ee magaalada Muqdisho, halkaasi uu degan yahay, islamarkaana lagu wado in dhowaan uu markaasi uga furmo shirka ay la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ugu sareyso, ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa isna bilaabay kulamo kala duwan uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, bulshada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, oo ugu horeeyaan madaxda sare ee golaha mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa markaasi kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda siyaasiyiinta kala duwan inta aysan markaasi furmin shirka ay la leeyihiin madaxda qaranka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in saacadaha soo aadan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi booqan doono ama uu tagi doono madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, isagoona markaasi booqashadiisa la sheegay xog aan helnay inuu kaga dalban doono sidii markaasi ay u oggolaan lahaayeen in villa Soomaaliya uu shirka ka furmo ama shirka lagu qabto, maadaama hadda goobta uu shirka ka furmaya aan lagu heshiinin.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xoogan gelinaya sidii markaa uga qabsoomi lahaa shirka gudaha Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho si aysan dhaawac siyaasadeed iyo mid markaasi amni uusan usoo gaarin dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba dowladnimada Soomaaliya. Madaxweynayaasha dowlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland ayaa doorbidaya sidii ay markaasi uga hor imaan lahaayeen, iyagoona aad u daneynaya in ay shirka uu ka qabsoomo gudaha xarunta xeyndaabka Xalane ee magaalada Muqdisho ee uu ka dhex yaalo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan la ogeyn waxa ay markaasi kaga jawaabi doonaan ama sida ay u aqbali doonaan in markaa uu shirka ka furmo gudaha Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, maadaama horey u jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeyay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya horey sanadkii 2024 madaxweynaha maamulka Jubbaland u soo jartay xarig waaran soo qabasho ah, walow December aakhirkeedii sanadka 2026 dowladda federaalka Soomaaliya ama sanadkan bilowgiisii ay ka laabatay markaasi go'aankaasi. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa isna horey khilaaf xooggan kala dhexeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, khilaafkaas oo gaaray muddo ka badan 3 sano oo uusan soo cagadhigin madaxweynaha Puntland gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Haddaba wararkaas wixii kusoo kordha kulamadaas kala duwan ee ka socda gudaha xeyndaabka Xalane ee magaalada Muqdisho iyo shirka marka uu furmo waxyaabaha ay madaxda ka wada hadlaan, waxaan idin soo gudbin doonaa xogahooda dhammaystiran anagoo markaasi fiirin doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee diiradda lagu saari doono, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda la xiriira arrimaha. Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ballaaran oo hogaaminaya ku-xigeenka guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha jinsiga iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda haweenka iyo carruurta, kaasoo gaaray magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay. Sidoo kale wafdiga ayaa waxaa qayb ka ah ku-xigeenka arrimaha gargaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan, iyagoo ka wada hadleen xaaladda abaareed ee waddanka ka jirta, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale ku-xigeenka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka iyo ilaalinta jinsiga ayay madaxweynaha Koonfur Galbeed ka wada hadleen sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda haweenka iyo sidoo kale xuquuqda carruurta iyo horumarinta arrimaha cadaaladda iyo ilaalinta bulshada nugul sidii markaasi loo ilaalin lahaa. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu mahadceliyay Qaramada Midoobay sida ay u garab istaagan tahay shacabka iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka laga hadlayo horumarinta arrimaha bulshada waxyaabaha ugu muhiimsan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda haweenka, carruurta iyo bulshada nugulba. Ku-xigeenka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha jinsiga ayaa isna dhankiisa dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uga mahadceliyay dadaaladeeda ku aaddan horumarinta arrimaha jinsiga iyo sidoo kale horumarinta arrimaha haweenka iyo carruurta. Wuxuu sidoo kale ku-xigeenka Qaramada Midoobay sheegay in dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya kala shaqeyn doonaan guud ahaana waxyaabaha ay markaasi lagama maarmaanka u ah horumarinta arrimaha bulshada. Sidoo kale ku-xigeenka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka ayaa isna Koonfur Galbeed kala hadlay sidii gargaar dhammaystiran loo gaarsiin lahaa xaaladda abaareed ee dadka kala duwan ee Soomaaliyeed ku nool halkaasi ay u saameysay. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ayay ka dalbadeen in markaasi si degdeg ah wax looga qabto xaaladda abaareed ee markaasi waddanka Koonfur Galbeed gaar ahaan ay ka jirto. Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xulka siyaasadda oo aan kusoo qaadanay xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo sidoo kale kulamada kala duwan ee ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo. Intaynu muuqaalkan kiisa xiga dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.